waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiino Saacad Safiir in marxaladda taariikheeda maanta waddanku maray waxa weeyaan maanta marxaladda uu marayo waxa weeyaan maraaxil badan buu dalkani soo maray wuxuu soo maray gumaysi Soomaali lagu kala qaybiyey oo 5 qaybood laga dhigay sidaad ogtihiin Itoobiya waxay ka qayb gashay shirkii Berlin ee 1884 dawladda kaliya Afrikaanka ee ka qayb gashay bay ahayd qarnigii 19aad dabayaaqadiisii qaybtay heshana waxay ahayd dhulka hadda lagu magacaabo Ogaadeniya in la siiyey boqorkii Menelik marka Soomaali sidaas loo kala qaybiyay markii labaadna 1954 28 February ayaa dhulkii reserve area la oran jiray ayaa la siiyey marka marxaladaas waxay ahayd marxalad aad u adag oo isticmaalka iyo Itoobiya oo wada jira ay rabeen in ay ummadda Soomaaliyeed kala qaybiyaan istaraatiijiyada maanta socota ee Itoobiya iyo dawladaha galbeedka qaarkood ku shaqeynayaan waxay u dhigantaa oo la mid tahay tii hore ahayd kala qaybinta مثلا waxaad arkaysaa markii dawladdii ay burburtay 1990kii in markaa Itoobiya ay bilowday in iyadoo kaashanaysa dawladaha qaarkood sida Mareykanka inay Soomaali kala qaybiso qabiil u kala qaybiso abuurto wixii ugu horeeyay geeska Afrika qabqablayaasha dagaalka ay abuurtay hub ciida ka badan dalka soo gelisay si Soomaali isu layso marka maraaxishaas baa la soo maray marxaladii gobonimaduna waa jirtay oo 3 dawladood baa meesha ka dhismay 1969kii xaqiiqdu waxay tahay ilaa 75tii in calanka Soomaaliyeed meel walba laga ixtiraamayay magaca Soomaaliyeedna meel walba laga ixtiraamayay Soomaaliyana ay ahayd hormuudka koowaad ee gobonimadoonka iyo xoreynta qaaradda Afrika oo dhan marka marxaladahaas oo inagoo soo maray waa nasiib darro maanta dalkeenii in cadowgii soo jiraaga ahaa uu joogo oo maanta magaalada caasimadda wasaaradii gaashaandhigga calankii Itoobiya ka taagan yahay waa ayaan darro ina haysata dawladda Itoobiya oo cadow Soomaaliyeed waa dawladda maaha dadka Itoobiya oo soo jireena cadow soo jireena ayaan marra ogolayn Soomaali inay midowdo Soomaali inay noqoto qaran sharaf leh waxay rabaan inay noqoto Soomaaliya dawlad yar oo ay kala qaybiso oo lands u bixiso oo marka meel walba mid camiil oo Soomaaliya ayaga ka amar qaata ay taagaan taas weeyaan danta ay ka leeyihiin waayo waxay og yihiin shacbiga Soomaaliyeed inuu yahay shacbi firfircoon shacbi wax qabsan kara shacbi dalkiisa dhisi kara shacbi wax istari kara Afrikana sharaf soo celin kara sidaa darteed ayaan marra u ogolayn inaan hore u socono idinku baarlamaan waxaad dhisateen dawlad xukuumad uu madaxda ka yahay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed kriteeriga ku doorateen muxuu ahaa waan joogay waxaan ahaa dadkii is sharaxay tartanka madaxweynenimada galay ayaan ahaa nasiib darro waa waayay 22 qof baan ahayn ninka hadda jooga Cabdullaahi Yuusuf baa la doortay doorashada shirkii ka socday Nairobi ee la rabay Soomaali in lagu heshiisiyo natiijadiisii waxay noqotay waxa maanta Soomaaliya ka dhacay in maanta dawlad ku sheegaasi ay tiraahdo annaga cazunay lama arag adduunka dawlad tiraahda waxaanu cazunay dawlad kale inay dalka iyaga qabsato lama arag waa dhacdaa dawladii inay dal kale soo weerartay ay daris yihiin laakiin dawlad ku faanaysa annagaaba cazunay oo marka waxaanu cazunay inay dalka iyagii burburiso caasimadda iyadii burburiso oo dadka iyagii oo haweenka iyagii kufsato adduunka taariikhda lama arag arsiyo kale u egtahay miyaa islaala taas waa la oran karaa laakiin ujeedada ugu weyn ee Itoobiya ay ka lahayd waxa weeyaan inay hesho dawlad iyo madaxweyne
ayada ka amar qaato Addis Ababa ka amar qaato wayna heshay macluumaadka dalka idinkaga imaanaya oo ah dhaawaca gaaray dhibta gaartay oo dad iyo maxaa la yiraahdaa maalba qiimina ma samayseen wax statistica oo haysan ma jirtaan loo sheegi karaa waxa weeyaan taayada waxa qaadana waxa qaata taqrabada midoobay dadka barakacay ee rasaasta iyo madaafiicda Ethiopia ka cararay Soomaaliya gudaheeda waliba agagaarka xamar iyo inta u dhow qarabada midoobay waxay ku qiyaaseen inay yihiin 1 milyan iyo bad 1 milyan iyo bad dadka madaniyiinta ee aan waxba geysan ee guryahoodii ayagoo jooga madaafiic la dhacay ama ayagoo suuq caadi u maraya madfac ku dhacay waxa lagu qiyaasay in ka badan 20,000 oo qof waana muddo yar oo hadda hal sano iyo badh buu dagaalkaasi uu socday tirada markaad eegtid daanada magaalada Muqdisho midalan 3 dalool 3 dalool ayaa la burburiyay dhulka la dhigay Ethiopia ha baxda kaliya maaha jaraa'imka dagaal ee dhacay in la soo taago maxkamad dadkii galay Ethiopiaanka iyo Soomaalida argagixisada Soomaaliya joogta maanta waxa weeyaan caalamku cadawga Ethiopia ciidanka Ethiopia guriyahayagii carruurtayadii iyo dadka yagii laynaya barakicinaya argagixisada dhabtii waa taas wadaadadu markay 6 bilood ay dalka xukumayeen nabad bay ku soo dabaaleen iyo sharci iyo kala dambeyn iyo amnigii shacbiga Soomaaliyeed u baahnaa wataas argagixisa mise waxa argagixisa oo argagixisa la shaqeeya ninka ku faanaya maanta madaxweynaha ahay Ethiopia waanu yeeray dalkaygii soo gasho keebaa labada argagixisa shacbiga Soomaaliyeedna waxaan ku boorreynaa inay midoobaan oo u midoobaan inay cadawga Soomaaliyeed ee maanta dalkooda haysta dalkeena haysta ay ka kiciyaan Great